jaamacadda Armas faraceeda magaalada Hargeysa ayaa deeq bugaaga ku wareejiyay library cusub oo laga hirgelinayo degmada Gaashaamo. Waxa munaasabada bugaagtaasi lagu wareejinayay ka hadlay madaxa student affairs-ka jaamacadda Armas Saad Muuse Cali isagoo ka warbixiyay bugaagtani ay ku wareejinayaan library-gaasi. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda. Marka labaad waxaan soo dhaweynayaa Sayid Daahir Saahid Sayid Nood سيد وحويان قدوميها لابريريا Gaashaamo Public Library سيد مر وحويان أرضي جامعة كقلين شويسي مرنا وانين دلنيرة أو أدو جد دالي بشر غير Gaashaamo سيد وهل هاين دلنيرة غير Gaashaamo تعلين سيد وحو لسي library اسم library isla markaana wuxuu ururiyay buugaag aad u badan oo ilaa soo sheegay 7,000 gaari oo buug maanta anaguna halkan waxaan u joognaa inaanu kala qayb qaadano bulshada reer Gaashaamo sidii aqoontooda loo kobcin lahaa halkan waxaanu ku diyaarinay buugaag ka kooban 584 buug oo iskugu jira dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay tacliintu haddii ay tahay science haddii ay tahay geography haddii ay tahay history haddii ay tahay novello waxa ku jira buugaag iyana Englishka in lagu barto loogu talagalay Saahid waa nin aad u dadaalaya Saahid waxaan oran lahaa gacan halgala geysto hawsha uu ku jiro dadaalkeeda ma aha kaliya markii ugu horeysay inuu buugaag ku caawino ciidan buugaag ku caawino hore waxaan uga caawinay iskuulaadka kala duwan ee wadanka library-yada runtii waxaan ku talin lahaa in dhammaanba bulshada kala duwan ay ka qayb qaadato sidii aynu dadkeena waxbarashada aynu ugu dadaali lahayn buugaagta aan hore u bixinay waxa ku jiray buugaag software oo qofku computerkiisa iskaga akhrisanayo waxa ku jiray buugaag hada oo sidan economica oo Saahid Public Library and Gaashaamo Public Library aan raadayaan ku caawinayno geestiisa isaguna waxa ka hadlay gudoomiyaha library-ga Gaashaamo waxaanu ka mahad celiyay deeqdani buugaagta ay jaamacadda Armas ku wareejisay sidoo kalena waxa uu ka hadlay halka uu marayo dhismaha library-ga Gaashaamo waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waad mahadsantahay Saad Muuse Cali guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa bahweynta jaamacadda Armas gaar ahaan gudoomiyaha guud ama madaxweynaha jaamacadda Armas mudane Ihsaan Cumar Ismaaciil madaxweyne ku-xigeenka Xuseen Cabdulaahi madaxweyne ku-xigeenka labaad Axmed Naasir sidoo kale shaqaalaha guud ee jaamacadda Armas gaar ahaan Saad Muuse Cali iyo saaxiibkii Cabdi Fataax oo hawshan iyagu si gaar ah uga sii hawlgalay si gaar ahaaneedna waxaan ugu sii mahadnaqayaa Xuseen Cabdulaahi oo aanu muddaba isaga hawshan ka wada xiriir joogtaana aanu lahayn hawshanna inay maanta halkan soo gaadho isagu lahaa suurtageliyeyna galladeeba gadaasheed sidaas si lamida Saad Muuse Cali iyo saaxiibkii Cabdi Fataax oo iyaguna ilaa shalay hawshan ku hawlanaa si fiicanna buwaagtiina ugu diyaariyey una hagar baxay waqtigooda fiicanna u horay dhammaantiinba waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin miisaanka xasanaadka rabbi ha idinku daro guulaysta hawlihii dhismaha maktabadda guud ee Gaashaamo hadda waa noo gabagabo meel fiican baanay wax marayaan waxa soo ilaatay oo noo dhammaatay hadda 9 dharaarood oo kalahaad iyo ka carooriyaad ahayd hawshaas ayada ahna halgankeeda aan ku wadnay hadda wuxuu baa haray oo ka dhiman hawshii furniture-kii sida kuraastii shelfiskii miisaskii iyo kuraastii iyo wixii kale la halmaalay taasna waxaan rajaynaynaa in dhawaan aan ku guuleysan doono hawshaasna ay hirgeli doonto badanaa marka hawlahan oo kale la wado waxaaba adkaada wajiga buug ururinta oo waxa dadka u fududaada hawlaha wixii la xiriira agabka iyo qalabka la dhigay gudaha maktabadda annaga waxoogaa taas imika waqti nagu yar qaadatay iyana ugu dambeyn idamka alle sidii aynu rabno ayay noqon doontaa haddii alla ka dhigo sida oo kale waxaan u mahad celinayaa wiilasha bahda saxaafadda
dhammaantiinba waan idin wada salaamayaa guulaysta